kulan wacan daawade waxaan halkan kuugu soo gudbinayaa xigmado dhiirigelin ah oo muhiim u ah noloshaada. intaan bilaabin ka hor like saar muuqaalka siina share garay si aan u ogaano inaad muuqaalkan ka heshay si aan u soo badino. haddaad nagu cusub tahay follow dheh boggeena Facebooka dibna u daawo muuqaaladii ku dhaafay. mahadsanid. ka taxadar waxa aad hadda beeranayso waxay sabab u noqonaysaa miraha aad beri goosanayso. maalin ayaad ku farxi doontaa mirihii aad beeratay ama waad ka shalaayi doontaa xulashadii aad ku beeratay. sonkor iyo cusbo waa isku qasmi karaan, laakiin xitaa quraanjadu way diidaa cusbada, waxayna qaadataa keliya sonkorta. dooro la socodka dadka wanaagsan, kana dhig noloshaada mid macaan. in dadku si geesinimo leh u qirtaan qaladkooda oo raaligelin bixiyaan waa wax aad u adag marmarka qaar, laakiin waa waxa ugu raqiisisan ee badbaadiya hadiyadda ugu qaalisan nolosha ee la yiraahdo xiriir. marnaba ha ka welwelin, hana isku mashquulin dadka gadaashaada ka hadla, sababtoo ah waxay caddeyn u tahay in noloshaadu aad uga xiiso badan tahay tooda. haddii aad si daacad ah u aaminto qof, aamin ilaa xad wax kasta oo natiijadu tahay. ugu dambeyntii waxaad helaysaa saaxiib aad u fiican ama waxaad baranaysaa cashar aad u fiican. qofna ha ku nicin, hana ku dhibsan nabar meel ka mid a jirkiisa ka muuqda, sababtoo ah dhaawac kasta wuxuu reebaa xagtin ama haar. xagtin kastana waxay sheegtaa sheekadaasoo odhanaysa waan badbaaday. laga yaabee in noloshaada u socon sidii aad u qorshaysatay, balse waxay kuugu socotaa sidii Alle u qorsheeyey. xaqiiqdii Alle qorshihiisa ayaa ugu wanaagsan. sii wad dadaalka iyo ducada. qof kasta oo xil qabta waa tegayaa, waana banaynayaa booska shaki la'aan. sidaasi darteeda had iyo jeer hamigaagu ha ahaado bixitaan guul ah, dhaxal ka tag dhammaadkaaga. waxa muhiimka ah ma aha in naloo sacabtumo markaan nimaano, balse in nala xasuusto markaan tagno. marnaba ha ka quusan wax aad si dhab ah u rabto. way adag tahay in la sugo, laakiin waxaa ka sii daran inaad ka shalayto. goortii aad aqbasho qof, waxaad aqbashay wixii ay horay u soo mareen oo dhan. sidaasi darteeda dib ha u soo gocan, hana u adeegsan. goortii aad qof necbaysato, wax kasta ay sameeyaan waxay noqonayaan kuwa kaa xanaajiya. haddaba ha gelin niyaddaada wax nacayb ah. aargoosiga ugu wanaagsan waa inaad horay u socoto, cafiso, iska ilowdo, kuna dadaasho inaad guulaysato. marnaba ha siin qof qanaacada ah inay ku daawadaan adigoo dhibaatoonaya. 80% dadku way iska aamusaan xitaa kolkii ay rabaan inay wax yiraahdaan si ay uga fogaadaan muran qof ay daneynayaan. marnaba aad ha ugu xirnaan qof haddii aysan iyaguna sidaa oo kale dareemaynin, sababtoo ah jacayl hal dhinac ah maskax ahaan ayuu ku baabi'in karaa. dadka qaarkii ma rabaan inay runta maqlaan, sababtoo ah ma doonayaan in dhalanteedkooda la burburiyo. jacaylku waxba ma ahan haddaan ficil la socon. aaminaaddu waxba ma ahan haddaysan caddayn ama daliil la socon. raaligelintu waxba ma ahan haddii aan isbeddel jirin. qofka u dambeeya ee maskaxdaada ku jira markii aad seexan rabto habeenkii waa sababta farxaddaada ama xanuunkaaga. ugu dambeyn, dadku waxay inta badan hilmaamaan inay ku mahadceliyaan markaad wanaag u samayso, laakiin marnaba ma hilmaamaan inay ku eedeeyaan haddii aad hal qalad ku samayso. haddaad ka heshay muuqaalkan like saar una share garay saaxiibadaada. mahadsanid.